السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن ونكسن داوديال كسو دواده برنامجka horumarka oo Jubaland TV idin kaga imaada asbuuc walba. Anigu Axmed Maxamuud Jaamac ayaa barnaamijka idin la socodsiinay idin soo diyaariyay. Dhanka kaamirada waxa iga saaciday saaxiibkay Cabdiqaadir Jaamac Maxamed. Halka farsamada barnaamijka ayaga caawisay saaxiibtay Sahra Bishaar Cabdiraxmaan. barnaamijka asbuucan toddobaadka aan ku soo qaadanayno ama arrimaha aan kaga hadlayno waxa qayb ka ah dekada weyn ee magaalada Kismaayo oo la dhisay horaantii 1967 ayaa waxa hadda ka socda hawlo shaqo. howlahaas oo aan ahayn kuwii dhoofinta dejinta ayaa waxa ay yihiin in dekada laga saarayo ilaa 7 markab oo xilligii burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya dekada ku degay. halkan idin muuqata ee horteyda ah mid ka mid ah maraakiibtaasi ayaa ku jira oo kuwa dagaalka shirkadda Alpha Logistics ayaa qaadatay mashruuc ah in dekada magaalada Kismaayo laga saaro ilaa 7 markab oo shaqadii dekada ka socotay caqabad ku ahaa. halkan uu ku suganay hadda waxa ka socda shaqo dhowr ilaa 2 qof ayaa gudaha u qoosay biyaha halka ay jarjarayaan markab ay injineeradu sheegeen inuu yahay ilaa 73 mitir oo gudaha ku jira. 71 cishe ayay qabsatay shirkadda Alpha Logistics inay ku saarto 7 markab oo ku jira dekada magaalada Kismaayo iyadoo sidoo kale ay bilaabayaan intaas kadib nadiifin. marayaha guud ee dekada magaalada Kismaayo Axmed Xaaji Aadan Guuleed ayaa barnaamijka horumarka ee Jubaland TV waxa uu kaga waramay arrimahan la xiriira horumarinta iyo dayactirka dekada gaar ahaan qaybta lagu sameynayo in laga saaro maraakiibtii halkan ku jiray. daawadayaal maraakiibta halkan ku jiray dekada waxay caqabad ku ahaayeen habsami socodka shaqada dekada iyagoo haystay nifaas badan ama cabir badan oo maraakiib ay ku xiran jireen hase ahaatee aan lagu xiran karin maadaama uu markab hoos ku jiro. William oo kamid ah managerada shirkadda ama hawshan gacanta ku haya ayaa isna waxa uu ka sharaxayaa muddada ay qaadatay hawshan halka ay wax u wadaan iyo 12 cisho waxa ay ku qaban doonaan. ugu horeyntii barnaamijka horumarka waxa uu wareystay marayaha dekada Axmed Xaaji waxa uu ka warbixinayaa halka ay wax marayaan. bismillaahi raxmaani raxiim anigu ah marayaha dekada Kismaayo Axmed Xaaji Aadan Guuleed horta waad aragtaan waxa noo taagan waa 2 maraakiib oo bixinaysa shaqo ka qabanaysa dekada Kismaayo shaqada la qabanayana waxa way wax muddo badan soo socotay dekadan waxa la dhisay waqti fog kacaankii waxa la dayactiray 1984 ilaa ay xilliga ay wixii ka dambeeyay wax laga qabtay ma jirin. markii dawladdu ay burburtay maraakiib baa ku degtay meesha ay yihiin maraakiib dagaal waxyaabo badan baan sameynay markaan anagu aan ka maamul aanahay waxaan ku dadaalnay sidii looga soo bixin lahaa 3 maraakiib 7 maraakiib aad ku jirto 4 hadda waa muuqataa 3 baan muuqan hal ba meesha ku jira 2na hal midkaas ku jira midna kanaalku ku jira 3daas ayaa haddana laga saarayaa waxaana lacagtaasi noogu deeqay dawladda Talyaaniga waxay noo soo marisay UN-ka khaasatan WFP waxay sameysay qandaraas xayeysiina qandaraaska waxa ku guuleystay company-ga la yiraahdo Alpha Logistics ayaa maanta shaqada bilowday daraad bilowday 3 maalin bay shaqada socotaa waxay bixinaysaa hadda markabka ugu horeeya oo halkan ku jira oo baakinka naga haysta oo markuu markabka ay bixiso waxa ku xigi doona markabka labaad waxa ku xigi doona markabka saddexaad markay dhameyso waxa ku xigi doona nadaafadii iyo meesha qoditaankeedii iyo birahdii wax looga soo tagay hadii wax looga soo tagay marka labaad project-kan wuxuu isugu jiraa 2 qaybood bixintaas iyo nadiifida
iyo training oo shaqaalaha la siinayo tababar ah shaqaalaha tikada shaqaalaha dekadda wejiga labaad wuxuu noqon doonaa rehabilitationka dekadda oo dayactirka dekadda ah taas laakiin welito noomuusan soo gaarin laakiin hadda waxa aan qabanayno oo mashruuca hadda aan naloo qabanahayo oo ay tahay waa maraakiibtaan la bixinaya waana la nadiifinaya markii intaa la sameeyo waxaa noo xigi doona tababarka shaqaalaha marka sidaas waay marka caqabado badanna way nagu hayeen oo waxaan noogu soo xiran karin maraakiibta hadda haddiina laga saaro insha allahu tacaala dekaddu awalba waxay ahayd dekad caalami ah dekadaha Soomaaliya dekada ugu caalisan waayo oo sida u dhisan tahay internationalka dekadahaas kale Soomaaliya waxay ku taalaa bariga waa meel xeeb oo la qotay kaliya dekadaha kale dekadan waxay ku taalaa bartamaha badda 4 kilomitir bay gudaha ku jirtaa sida ay u dhisan tahayna waa dekadaha caalamiga xilliga la dhisayna waa 1964 marka sidaas waana aragtaa horumarka ka socda waxaa ku soo xirtaa bishii 3 markab 4 markab insha Allah haddii waxaan laga saarana wax badan baa ku soo xiran hadda maraakiibtaas kalluumaysiga ku xiran 6 maraakiib baa noo joogto kalluumaysiga kuwaana jooga kuwa kale hadda soo socda dekadu way shaqaynaysaa waana kaabiyada dhaqaalaha Ilaahay ku munaystay Jubbaland ama Soomaaliya khaasatan Jubbaland ay naga soo gasho income dhaqaalaha ugu badan maray caqabad baa sheekinayna ku hayeen ganacsato badan oo maraakiib soo rabtay waxaa jira badweynta toddobaad iyo bar ku taagnaa oo sugayay in markab kale boos ka baxo caqabadaha marka isdul istaag miyaan lagu duudegi karin maraakiibta ma mari karin ama shil baa ka dhalan kara waxaa waaye meesha uu ku xiran yahay wax markab oo soo istaagi kara iyo wax gaadiid ah oo soo istaagi kara ma jirto sababtoo ah asagu gudaha ku jira gaadiidka kalena wuu duqeynaya labada gaadiid waa isla degayaan kuma soo xiran kara waa ka calaamadda gaduudan aan u sameynay intaaba laguma xiran jirin lamana isticmaali jirin waxaa la isticmaali jiray dhinacan kaliya oo hal markaba iyo xaggaas oo 2 markaba bas inta lamaba isticmaali jirin rowrowgaas oo meesha loogu talagalay xataa xoolaha ay ka dhoofaan waxaa lagu isticmaali jiray markab yar markuu soo galayo oo 80 mitir ah maraakiibta 280 320 ma soo gali karaan inta waa inaan dhinaca kale u wareejinaa caqabadahaas uu nagu hayay sababtoo kale caqabadaha uu nagu hayay waxa hadda markii kan uu hadda xiran yahay markab kale xag uu noogu soo xirto meeshan baakin bay noo tahay haddana wax kuma xiran karno marka wuxuu ku qasban yahay markabkii iyadoo dekadii dhinaceedina la arkayo inuu bannaan tahay haddana wuxuu ku weydiinayaa ninka kabtanka ajnabiga maxaa dhacay dekadiina waa arkaa waxaan ka arkaa markaas waxaan u sheegaynaa u sharaxaynaa beertiga uu rabo inuu ku soo xirto hoostiisa inuu markabka ku jiro markaas ay fiirinayaan wata maray qoladan tan shalay waa la joogtay maraa imid halkan hadda waa taagan tahay oo xilli walba waa joogtaa shaqadan la wada heeganada maxay hadda sameeyeen ilaa hadda waxay sameeyeen markii ugu horreysay surveygooday samaysteen hadda way quuseen jarjarkii bay ku jiraan waxay sida noo sheegeen 4 qaybood baan ka dhigaynaa way dhaheen 4 qaybood markaan ka dhigno waan soo saaraynaa shacatarkan bahalkan wishka saarayaan way ku yaryaraynayaan sidii baabuurta yaryar ay u qaadato santareelada scraapki markaas banaanka geynayna wata waxa sheegtay in wajiga koowaad 3 markab halkan iyo kan weyn hadda ka haysto la bixin doono iyo midka ilanka laga soo gala wata waxaa hartay 4 kale oo muuqata saa sheegtay kuwan qorshe ma haysan ma kuwan way ku dabixigaan laakiin kuwan hadda waxa necessary oo xagga shishe oo nagama celinayaan ilaa xagga maraakiibta waa noogu tagi kartaa laakiin macnaha badda inaan iska nadiifsanaa laakiin waxa muhiimadda waa 3 maraakiib oo la saaro la nadiifiyo loo dayactiro qalab la keeno ma dhawaa كمبنيga Alpha Logistics sheegtay in mashruucan ku guuleystay markii la xayeysiiyay hadalkaagan waxa ku jira tababar ay siinayaan shaqaalaha dekada tababarkan ma noqonaya tababarku wuxuu noqonayaa shaqaalaha UN-ka bixinaya ay waxay ku guuleysteen kaliya bixinta iyo qodista mashruuca trainingka waxa bixinaya niman khubaro oo ka socda marine tariff marine lowga iyo UND bas uma bixinaya wata muddada shaqadan ay socoto ma yaqaan noqonay maladin shay 72 cisho laakiin kabtanada waxay sheegeen ka yar inaan ku soo gabagabeynaan laga yaabaa hadii waqti helaan nimanka project manager-ka wuxuu sheegay ka yar inuu ku soo gabagabeyn karaa caqabad ma idin ku noqon doontaa shaqadii ma soconaysa mise caqabad baa imaanaysa maadaama ay laftirkooda 4 3 markab 2 iyo 2 taaga ma waxa markii hore aan ka fikirnay maadaama bahasha waxay noogu dhisan tahay L hadii dheer kaliya ahaan lahayd caqabad noogu ahaan lahayd meesha laada ay noogu sameeyaan dhinaca dhan baarta ayagaan iska siinayo inay shaqadooda ka qabsadaan ay ku dhameystaan dhinacaasna dekada aan ka shaqeyno aan isticmaalno
oo wixii aan rabno aan ku soo xiranno oo ay nooga baxaan awalba markay wax ku xiran yihiin kan kale wuu sugi jiray moogta marka dhinacaas oo dhan waa isticmaali karnaa waxaan isticmaali karnaa qaybtaa ka soo hartaan isticmaali karnaa inta waa isticmaal hadda ilaa 60 mitir waa isticmaali karnaa oo maraakiibtaas waa ku soo xiri karnaa haddii laydinka saaro maraakiibtii shaqadiina gaabka ku ahayd tababar ama si howlwadeennadii hoose ay noqoto meeshu meel tababar iyo la wada baneeyey bishamadin kugu jirtaa in la casriyeeyo shaqadiina markaas way sii badan habeen la shaqeeyo habeen haddaba waa shaqeynaa habeen iyo maalin dekadda way shaqeysaa ama ha la casriyeeyo ama yaan la casriyeyna waa international seaport waa dekad caalamiya maalintii iyo habeenkii waa shaqeynaa habeenkii markabka jooga hadda waxa ugu dambeeyay hadda naga baxay waa markabka MSC containerka dhan habeenkii la dhigay subaxiina waa la jabinay wuuna reeranahay loo baa ku xigtay loodii habeen iyo maalin waa ka shaqeynay waxa jooga noomalaha anaga maalin iyo habeen maalin kaliya shaqeynaa ma aha habeenkana waa shaqeynaa marka laga tago bagaashka iyo tikada waxyaabaha ka imaada iyo annagu waxaan waa dalku waa dhoofin iyo wax u la soo dawo annagu xoolaan dhoofin ganacsiga xoolaha ka warso tikada waxaan dhoofinaa xoolo kaliya ma waxaan dhoofinaa sisinta waxaan dhoofinaa liinta waxaan dhoofinaa kalluunka waxaan dhoofinaa xoolaha nool kalluunka ilaa hadda waxaa la marayaa sanadkan waan dhoofinaa waa maraakiibta kalluumaysiga waa kuwan liinta sisinta intaba waa dhoofinaa maariyo mahadsan idinka ma soo dhawaada injineer William oo kamid ah ragga hawshan ku howlan wax ka bixinaya maraakiibta mas'uulna ka ah shaqadan teamka halkan ku sugan hogaaminaya ayaa waxa uu Jubaland TV waraysi siiyay waxa uu ka warramay hawsha ay wadaan muddada ay yimaadeen iyo halka ay wax u marayaan. My name is William Moore. I'm the project manager for magacaygu waa William waxaan ahay madax mashruucan oo ay fulinayaan Alpha Logistics oo ah shirkad koonfurta Afrika laga leeyahay iyo Subtech oo ah shirkad Kenyaati ah waxaa mashruucan oo maalinnimadii Sabtida ahayd aynu soo dhaafnay la soo bilaabay maalgelinaya hay'adda cunnada caalamka WFP waxaana badda ka soo saaraynaa burburka markab sanadii 1991 qoysay oo haatan masaafo 9 mitir ah biyaha ka hooseeya waxaan 6 ilaa 7 isbuuc ee fooda inagu soo hayay qorsheynaynaa in aan markabkan soo saarno annagoo intaan badda hoosteeda qoosno qayb u jarjari doona qalabkan dhabarkayga ka muuqda waa qalabkii hawshan lagu qaban lahaa oo ka kooban sakiinta biraha lagu jarjaro iyo gacankii qaybahan la jarjaray soo dalici lahaa oo badda ka soo saari lahaa markaan burburkan soo saaro waxaa banaanaan doona qayb dhan oo dekada ka mid ah si ay maraakiib dheer ay ugu soo xidhan karaan dekada hawshan kadib waana ujeedka laga leeyahay mashruucan oo qandaraaskiisu socon doono muddadaas 6 ilaa 7 isbuuc ah ee aan idin tilmaamay waxaa jira maraakiib kale oo uu burburkoodu ku jiro badda hoosteeda hase yeeshee qandaraaskan aan haatan ku guda jirno wuxuu kaliya ku kooban yahay halkan markab ee aan haatan soo saarayno waana markab ciidan uu lahaan jiray ma garanayno maraakiibta kale waxa ay yihiin noocyadooda waayo ma aanan iyaga u qoosin si aan u baadhno waxaase jira markab ku gudban marinka ugu weyn dekada oo u muuqda markab xamuulka qaadi jiray markaan fiirno inta uu la eg yahay hawshan ma aha mid fudud waayo biyaha baddan ma aha kuwa hoostooda waxa ku jira laga arki karo waxaana sidaa darteed u baahanay qalab khaas ah oo aan ku ogaanay inta uu la eg yahay markabkan inta aanan quusin ka hor waxaan haatan ognahay inuu yahay markab dagaal oo dhirirkiisu dhan yahay 73 mitir oo dalka Poland lagu sameeyay 60meeyadii maadaama uu markab dagaal yahay waxaa jirtay cabsi ah in ay ku jiraan bambaanooyin aan wali qarxin hase yeeshee hadda waan xaqiijinay in aysan ku jirin hawshuna meel fiican ayay noo maraysaa so the bathymetric survey gives us a picture of the vessel so we know exactly where it is on the quayside then the divers are going down now and they inspect the vessel
Dheega Cabdi Cali oo ka mid ah howlwadeenada dekedda caalamiga ee magaalada Kismaayo ayaa waxa uu ka warbixinayaa muddada ay maraakiibtan halkan ku jireen caqabadaha kala duwan ee dekedda ay kala kulmi jirtay. Waxa uuna sheegayaa in maraakiibtan ay gabi ahaanba caqabad ku ahaayeen soo xirashada maraakiibta kale ee waaweyn ee dekedda imaanaya. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu marka hore waa Dheega Cabdi Cali. Waxaan ka shaqeeyaa dekedda Kismaayo. Waxaan ahay qaybta xafiiska Port Charge-ka. Ku xilsaaran qaybta Port Control-ka. Haddii aan ku bilaabo marka hore markabkan dekedda ku jira wuxuu ku jiray muddo 30 sano ah. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin hadda maamulkan iyo dawladda noo jirta ay hadda dhisantay ayaa muddo badan ka soo shaqaynaysay in ay ka saarto haddana way ku guulaysatay hawshiina waa la wadaa wuxuuna muddo badan caqabad u hayay beertinkan oo dhan 150 mitir oo hal ku xidhan lahaa hal markab ayaa naga xidhnayd iyadiina waa naloo fududeeyay hadda oo dawladda iyo maamulkayga ayaa ka shaqeeyay waana laga saarayaa shaqadiina way socotaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin aad bay u mahadsan yihiin waxaan aad u mahadnaqayaa madaxweynaha Jubbaland ee shaqadan ka soo shaqeeyay muddada badan kuna guuleystay haddana aad aragtaan inuu ka saarayo birtani waa miisaan bay ka tahay dhinacna waxay ka tahay af bay ku leedahay way garaacaysaa markabka way ku dhufanayaan waxay sameynayaan way ku duleelinayaan salkay tagaysaa way kala goynaysaa markabkii way kala jaraysaa kala jaritaan marba waxay soo qaadayaan marba bir bay soo qaadayaan miisaanka ka weynaa kii hore way bedelayaan mid kale ayay ku xirayaan kabacdi waa sidaad aragtay hadda ayaa loogu sideynayaa wuxuu tagayaa markabkii wuu duleelinayaa meeshii dhulkii ilaa markabkii marka xafaarad ahaan soo saarista wuu jajabinayaa markuu jajabiyo kabacdi xafaarad camal buu soo qaadayaa wuu soo gurayaa marka waa la sheegay inay ku jiraan bal goobaha ay dekedda kaga jiraan noo kala maraakiibta midi waa kana laba waxay ku jirtaa channelka bay ku jirtaa geeskiisa mid waxa ku jira mid xagan buurta faafatu ku jira halkan waxa ku jira iyagana maraakiib waqtigii dawladda Maxamed Siyaad Barre ku dhacay oo saddex ay ku kala jiraan inta kale oo channelka waxa ku jiraan laakiin caqabada ugu weyn ee haysatay kan oo ahad wada booska diladin banayo meeqa marka ay ugu soo xireen haddii booska loogu soo xiro maraakiibtu si ay u kala dhaadheeyihiin weeye afar markab baa ku noogu xidhan kartaa laba iyo laba dhinacaas kulli waa laga wada saaraya hadda dhammaan way ka saarmay markabkan baa muhiimku u yahay hadda sidaan arko markabka muhiimadda beertinka dekedda kan waay haddii la wada saarayo kulli waa la wada saaraya kuwa halka ku jira oo meeshii daray dhooga noo ahaan jirtay daray dhooga dekedda iyagana waa la saarayaa qaybtan xoolaha lagu diray hoobarka ma shaqaynin oo waxay ku shaqayn weyday meeshan waxay caqabad ku hayay markabkana ku hayay qaybtii roorooga lafstooga waa maraakiibta ama laga dejin jiray ama xoolaha laga saari jiray weeyaan beertinkaana wuu naga xidhnaa xilligan waqti badan baa laga soo shaqaynayay arrintan uu ka soo shaqaynayay maamulka dawladda Jubbaland in markabka saarto laamo badan baana yimid hay'ad badan baana yimid madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa ku guuleystay hadda keenayna qoladii ka saari lahayd aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waana nooga saaray alxamdulilaahi rabbil caalamiin wax weyna waa noo qabanaysaa insha Allah bidnillaahi alkariim marka la eego muddada hawshan soo gabagabayn doono maxaa lagu sheegay maadadan hawshan lagu gabagabayn doono waxaa lagu sheegay ugu yaraan 2 bilood ugu yaraan 2 bilood waay ugu badnaana waxay ku qaadaysaa 3 bilood meelahaas guud ahaan daawadayaal barnaamijkii horumarka ee Jubbaland TV asbuucan idinkaga imaanaya dekedda magaalada Kismaayo oo howlo horumarineed ay ka socdaan waa naga inta Axmed Maxamuud Jaamac ayaa idin soo saaray idin la socodsiinayay Cabdiqaadir Jaac Maxamed ayaa kaamirada iga duuba halka Sahra Bishaar Cabdiraxmaan ay farsamada barnaamijka iga saaciday xilliga xiga inta aan asbuuca xiga barnaamijka horumar ku kulmi doono dhamaanteen nabaday